neceb cid kasta oo caqli leh. Dhammaan dhaqannada iyo dhalanka aadamuhuna wuu diiday. Diimaha iyo caqiidooyinka oo dhammina way isku raaceen xaaraantinimadeeda. Sababta oo ah waa ta ugu weyn khiyaamooyinka. Waa aasaaska dembi kasta iyo furaha xumaanta oo dhan. Waa ilinka ugu gaaban ee naarta loo maro. Iyada awgeed ayaana qofka looga dheerayaa naxariista Ilaahay iyo hanuunintiisa. Arrinkiisa oo dhan looga dhigaa kaaf iyo kala dheeri, baaba iyo bayhoof. Waxa aynaba sababtaa in qofka loo labanlaabo cadaabta. Dabcan waxa aynu u jeednaa waa beenta oo aynu muuqaalkeena kusoo qaadani doono. Magacaygu waa Jimcaale Daahir, halkanina waa Salgaadh Media. Beentu waa in shay si badheedh ah oo aan xaqiiqada ahayn looga warramo shay, iyada oo la ogsoon yahay sida saxda ah ee ay wax u jireen. Noocyada beentuna waa 3. 1. Beenta hadalka. Waa in la sheego wax khilaafsan xaqiiqada ama runta shayga. Beenta hadalka ah ee ugu weyni waxa ay tahay ta ugu weyn ee beenta hadalku waa ta Ilaahay lagu been abuurto. Waxaa iyaduna beenaha waaweyn ka mid ah beenta rasuulka sallallahu calayhi wasallam laga sheego. Waxa uu yidhi rasuulkeeni suubanaa sallallahu calayhi wasallam, qofkii si badheedha iga been abuurta ha diyaarsado meeshii uu naarta ka geli lahaa. Sidoo kale beenaha waaweyn waxaa ka mid ah in markhaati beenaale la furo. Xitaa in beenta lagu kaftamaa waa wax aad u khatar ah. Waxa uu yidhi rasuulka sallallahu calayhi wasallam, hoog iyo halaag ayaa u sugnaaday ka ku sheekeeya beenta si uu dadka uga qosliyo. 2. Beenta ficilka. Waa inuu qofku sameeyo ficil oo uu siiyo muuqaal kale oon dhicin. Beenta noocan ahi waxa ay ka saameyn badan tahay beenta hadalka. Tusaalaha ugu wanaagsan ee been sheegista ficilka waxaynu soo qaadan karnaa qisada Eebbe inooga warramay ee dhex martay Nabiyullaahi Yuusuf iyo walaalihiis. Markii ay aabahood u yimaadeen iyaga oo oohin been ah oo ay keeneen khamiiskii Yuusuf oo ay soo mariyeen dhiig been ah. Yuusuf walaalihii waxay kulmisteen beenta hadalka iyo tii ficilka labadaba. 3. Been sheegista ujeedada ama afka qalaad loo yaqaano ostentation. Waana beenta laga sheego waxaan alle dartii loo samayn. Tusaale wanaagsan waxayna kaga filan 3dii nin ee shahiidka aqoonyahanka deeqsiga ee xadiiska lagu sheegay inay naarta galayaan. Marka aad isku wada miirto axaadiistan iyo dhacdooyinkaas, waxaad garanaysaa inay iimaanka iyo beentu meel wada gelayn. Sababta oo ah beentu waxa ay kugu hogaamisaa xumaanta, xumaantuna waxay kugu hogaamisaa naarta, runtuna waxay kugu hogaamisaa wanaagga, wanaagguna wuxuu kugu hogaamiyaa jannada. Marka uu qofku been sheegayo, waxa uu amaahdaa dabeecad been abuura oo ka hor imaanaysa dabeecaddiisa dhabta ah. Laakiin su'aal, maskaxdu maxaa ku dhaca marka ay been sheegayso? Waa kuwee aagagga maskaxda ee u qaabilsan runta iyo beenta? Sanadkii 1999 buu nin lagu magacaabo Daniel oo ka socday jaamacadda Stanford ayaa awooday inuu muujiyo qaybaha sare ee maskaxda iyo qaybaha hoose ee ka qayb qaata hannaanka been sheegista. Aagaggan ayaa loo tixgeliyaa inay mas'uul ka yihiin diirad saarista, fikirka, xasuusta iyo horumarinta shakhsiga qofka. Daraasado kale oo loo adeegsaday qalabka la dhaho fMRI-ga ayaa dhayli ka caddeeyay in qofku marka uu been sheegayo ay qaybaha hore ee maskaxdu sameeyaan xarakaad degdeg ah. Haddaba aanu imaano sidee lagu ogaadaa qofku marka uu been sheegayo? Cilmi baadhayaal iyo saynisyahanno ayaa boqolkii sano ee lasoo dhaafay ku dadaalay soo saarista qalab casri ah oo lagu ogaado qofku marka uu been sheegayo. Ha yeeshee nasiib xumo guul lagama gaadhin. Haddana dadaal dheer kadib waxaa la ogaaday in 3 hab si sax ah loogu ogaan karo. 1. Waa in la isticmaalo qalabka magnetka ku xidhan ee loo soo gaabiyo fMRI. 2. In xoogga la saaro isbeddelka ku dhaca wejiga qofka marka uu been sheegayo. 3. Waa in la duubo codkiisa. 4 oo ah tan ugu muhiimsan waa in la duubo codkiisa kadibna dib loo dhageysto xilliyada uu beenta sheegayo. Sababta oo ah qofku marka uu hadalkiisa been ku daro waxaa isbedelaya laxanka, dhawaaqa iyo mowjadda hadalka, kuwaasoo sameynaya noocyo kale oo hadallo ah. Maxaa yeelay hadalkeennu waxa uu leeyahay laxan, dhawaaq iyo habdhac u gaar ah, balse marka uu qofku been sheegayo waxaas oo dhan way isbedelayaan. Intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa muuqaalkii aynu uga hadlaynay beenta. Haddii